dunida waxaa ka jira waxyaabo badan oo mucjisooyin ah iyadoo qarnigan ay dunida soo mareen waxyaabo aada la yaab u leh sida cudurka hadda ka socda dunida ee loo yaqaano coronavirus. in dad badan marka coronavirus lasoo hadal qaado waxay ka hadlaan haweeneyda loo yaqaano babavanga, haweeneydaas oo u dhalatay bulgaria oo inta badan saadaalo bixin jirtay. waxayna dadku dhahaan waxa ay saadaalisay inuu dunida 2020 ka dhici doono coronavirus. aan jaleecno taariikh kooban oo ku saabsan haweeneydaas waxaa la oran jiray Vangelia Bandeva Gustrova, waxaana inta badan loo yaqaanay Babavanga. waxay ahayd haweeney aan indho lahayn, waxayna taqaanay sixirka, faalka iyo dawooyinka herbalka loo yaqaano. inta badanna nolosheeda waxay ku qaadatay goobta loo yaqaano Rubait ee ku taala buraleyda dalka Bulgaria. waxay sheegtay waxyaabo fara badan oo qaarkood dadku ku waramayaan inay soo baxeen. haweeneydan waxay ku dhalatay waqooyiga Macedonia sanadkii 1911 waxaana ay geeriyootay 1996 oo ay ku geeriyootay magaalo madaxda dalkaasi Bulgaria ee Sofia. magaceeda rasmiga ah waa Vangela Bendova Gusterova, waxaana lagu aasay Report 1996. waxyaabaha haweeneydan lagu soo xusayo ama lagu soo hadal qaado marka ay taariikhda laga hadlayo waxaa ku jira iyadoo dadka qaarkood ay sheegayaan in ay saadaalisay arrintan mucjisada ay ku saabsan coronavirus inuu dunida ka dhacayo. waxaa la sheegayaa sidoo kale in ay saadaalisay markab ay leeyihiin ruushka oo ah maraakiibta quusa oo ku degaya Kursk sanado ka hor ay saadaalisay, waxaana lagu waramay in markii dambe arrintaas ay dhacday. Babavanka waxay saadaalisay waxaa ka mid ah iyana waxyaabo kale oo laga soo hadal qaado sida cudurkan hadda socda. qof ayaa waxa uu sheegay in Babavanka ay saadaalisay in biyo ay harqin doonaan wadamo ay ku jiraan Pakistan, China, Japan iyo deegaanka Alaska ee ku yaala Mareykanka sanadka 2020. waa sanadka aynu ku jirno. sidoo kale waxay sheegtay in dhulgariir gaaraya 7.5 uu ku dhufan doono qaaradda Aasiya sanadka 2021. dhulgariirkaas oo ah dhulgariirada kala cabirkooda marka la eego dhulgariir aad u baaxad weyn. sidoo kale waxa ay dadka qaar leeyihiin waxyaabaha ay hore u saadaalisay qaarkood waxay u muuqdeen in ay soo baxeen markii dambe. haweeneydaasi ayaa waxa ay sidoo kale saadaalisay 2000 in ay dalkaasi ruushka ama 2000 sanadka markuu ahaa in dalka ruushka uu degi doono markabka waquusa ay ku dhiman doonaan shaqaale fara badan, taas oo ay ka digtay. hase yeeshee markii dambe la arkay oo ay arrintaas ay dhacday. Babavango sidoo kale waxay sheegtay in Mareykanka uu madaxweyne ka noqon doono ninkii oran jiray Barack Obama sanadkii 2008, taas oo laftigeedu ay dhacday. waxay saadaalisay haweeneydaasi in dunida oo dhan uu saameyn ku yeelan doono cudurka coronavirus waa ka hor intii aanay dhiman. sidoo kale dadka iyada aadka ula socda arrimeeda waxay sheegeen in ay 85% dhacayeen oo ay ahaayeen waxyaabo run ah marka ay saadaaliso oo qaarkood ay sidii ay ahaayeen u dhaceen. sida lagu sheegay website-ka skeptics.com loo yaqaano waxaa jira waxyaabo yaryar oo markaasi aan dhicin oo ay saadaalisay, laakiin inta badan waxa uu yiri website-ku Babavanga wixii ay sheegtay way dhaceen. Vanga waxa ay ahayd haweeney aan aqoon lahayn, sidoo kale wax ma qori jirin, waxna ma aqrin jirin. waxay dadka yaqaanaa sheegayaan in ay ahayd haweeney marka qaar waxyaabaha ay ku hadlayso aada loola yaabay. waxaana ku jira in ay saadaalisay in sanadka 2005 uu dunida isbedel weyn ka dhici doono. waxaana ku jira in ay saadaasheeda ku sheegtay in 2008 dadka bini'aadanka ay u haajiri doonaan meeraha Venuska loo yaqaano iyo markaas ka raadinaya inay helaan. waxaana sidoo kale ay sheegaysaa in dunida laga yaabo in ay saameyn ku yeelan doonaan waxyaabo la xiriira atmosfeerka iyo hawada oo
ay sheegayso in ay soo bixi doonaan waxyaabo ay ku jiraan dadyawo aan la garanayn oo biyaha hoostooda ka iman doona oo dunida markaasi waxyeelo u geysan doona. haweeneydan ayaa waxyaaba ay sheegtay waxaa hadda ay dunida ku baraarugtay markii cudurka coronaviruska uu soo caanbaxay. watahay maantana hormadii aanu ku talagalnay ee babavanka ku saabsanayd intaas ayay inoogu dhantahay. صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا.